السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله سلام أصحابتك آدي آذا سلام أصحابتك channelka iyo ku xiran meel kasta dunida daafaheeda ka joogtaan waa walaashin Saara qalanjeed in la soo dhawaada habeen wanaagsan kulay aniga habeen bay ii tahay maasha Allah tabarakallah waa mahadsantiin asxaabta inta subscribe ka saartay inta like ka saartay commentiina quruxda badan maasha Allah aad iyo aad ugu farxaa qolaalihii tiina xiisay soo dhawaada intiina cusubna soo dhawaada channelkuna ka buuxsamin insha Allah subscribe ka dhac ugu dadaala alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaaha mahad iskale dhamaanteen inagu kulmiyay bartatan aan fiidiyoga idinka soo duubayo maasha Allah tabarakallah alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaaha mahad iskale waxaan leeyahay insha Allah ilaahay dhamaanteen kuwa khayrka isugu yar Allah inaga dhigo kuwiisi saamaxana Allah inaga dhigo waxaan kaloo leeyahay dhamaan ummadda islaamka waan u duceynayaa in ilaahay xanuunada kaba dhinac marsiiyo adduunka ka shira maanta meel kasta oo tihiin xanuun baa jira waxa weeyaan ummadii dhan wadnahay farta ku haysaa waxa weeyaan waa la baqayaa guryaha lagu xiran yahay khaasatan dadweynaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay ilaahayna naga hayo dhamaanteen ilaahayna naga hayo rabbi tabaaraka wa tacaala Allah naga hayo ilaahay naga xijaabo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu khayrka bisha barakeysan rabadaan ay wajhada inagu soo haysa oo inooga xijaabo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga dulqaado xanuunka maanta meel kasta saameeyay ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay hala digtoonaado khaasatan dadka Soomaaliyeed jooga waxaan leeyahay farihiina markasta hala nadiifiyo guryihiina hala joogo waxaan leeyahay meheradaha farakudiridka loo aado oo Soomaalidu iska caadaysatay aysan waxbana ka soo qabanin hala iska dhaafo gurigiina hala joogo waxaan kaloo leeyahay maxay ahayd hal gurigiina lagu sugnaado ilaahay ha naga dulqaado si fiican faraha la iska dhaqo markasta oo wax qabanaysid markasta oo seexanaysid markasta oo cunto cunaysid awalba oo dhaqanayni waxa weeyaan qof kasta waxa la markaa dhaadid war hebel faraha iska dhaq kule shanta waqtiga salaadan iska dhaqa farahe maxay ahayd ma walba faraha lagu yaraa marka idinkoo salaadiina maasha Allah tabarakallah waxaan halkaas ku tusinaysaa ummad aad iyo aad u tukatay inay tahay maasha Allah marka alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaaba wax lagu inaga dhigay dad muslimiin wax lagu faano weeyaan misana si la wajibaara hala si la wajibaaro wixii hore u sameeynayay maxay ahayd maanta si la wajibaar adoo shantii waqti sanay ka badan dhaq gacantaada markasta oo mada iyo alkoolada ku xaqtaalo markasta ilmaha yar wax siinaysid markasta waayelka wax siinaysid markasta aad maxay ahayd hawshaada aad u gudanaysid imma faraaga mayr taas waa taas tan kale waxaan kula dardaarmay walaal nafteena cabsida ilaahay baan idin kula dardaarmaya kuwa ilaahay bisha barakeysan nabad iyo bashbash iyo barwaaqo ku gaarsiiyo Allah naga dhigo aan isku soo duceyno walaalaheen banaha insha Allah channelkan wuu cusub yahay ana mar hore afartan laakiinse away kooyna ka soo hadlo marka subscribe ka dhac ya maadaama wadaadii soo hadashay maasha Allah ku dadaala subscribe ka share idana waxa weeyaan waa tii la isku dhaafay idana aad bay u wanaagsan tahay waayo wax diidaba lama arag midda kale waxaan idin dardaarmayaa naftayda iyo naftiina ma cabsida ilaahiyay kuwa ilaahay ka baqa Allah naga dhigo midda kale Soomaaliya qabyaaladana inaga daaya maanta maxay ahayd inta leekahay ilaa iyo maxay ahayd maalintan dhashay
Soomaalida qabyaalad waxa la dhahaa ayay ku jirta reer hebel reer hebel ma dhamaado miya marka insha Allah taasina waa taas ilaahay naga mudoobeeyo qabyaalada qurunka xaasidka xiqdiga ilaahay intaba naga mudoobeeyo waxaan u dardaarmayaa nafteeda iyo naftiinaba cabsida ilaahiyay inaa ilaahay dowlad khayr qabtana siiyo madaxweynaheena inuu ilaahay noo barakeeyo ilaahay inuu waxa weeyaan ummadii madaxweynaheeda adeecda inuu ilaahay naga dhigo qof kasta wuxuu ku leeyahay wadanka waa babaay madaxweynaha jira dowladda jira wax badan way jiraan waa dowladda xumi dowlad la'aan bay dhaantaa marka insha Allah Soomaaliyay aan ahaano dad hal far aan ahaano dad hal maxay ahaytoy qof la aan ahaano dad maxay ahaytoy hal dan leh aynu ahaano dad waxay ahaytoy wanaagsan aynu ahaano waxa weeyaan si aan ilmaheena anaga maanta waan ku dhacday maanta waxa weeyaan waynu ku dhacday laakiin si maxay ahaytoy mustaqbalka ciyaalkeena iyo ciyaalka soo dhalan doona iyo maxay ahaytoy kuwa hadda dhalinyarada ah oo maanta 15 16 17 meelaha jira oo kaleeto si aan u badbaadino qof walba waxa weeyaan inuu ka qayb qaato dowladda dhisideeda qof walba inuu ka qayb qaato caafimaadka biyaha qof walba wuxuu heli karo sadaqa maalintii kushin 2 kun 3 kun lacag maahan laakiinse markii kun qof intaas oo lacag iska ururso waxaynu gaaraynaa heer baan gaaraynaa nolol baan gaaraynaa caafimaad baan gaaraynaa wax walba aan qabsan karnaa ma hadama maxay ahaytoy nolol qurux baan helaynaa inay dowladda lala shaqeeyo dadka shacabka waxaan ku boorinayaa oo guryahaas ka jooga oo Soomaaliya jooga inay dowladooda u adeegaan inay ninka qarax ridaya iyaga indhaha ugu jeeda ay dhahaaniin maxay ahaytoy qarax naga daa way ogyihiin waa la yaqaanaa ninka maxay ahaytoy maanta wax dhacaya wax xadaya bangiga xadaya waa la garanayaa waxa weeyaan maxay ahaytoy waxa weeyaan haddaad adiga naftaada badbaadin cidina ku badbaadin mayso waxa farmaajo wax naga qaban kara khayran wax naga qaban kareen marka Soomaalidan waxaan leeyahay shacabka khaasatan shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay walaalaheena mustaqbalkeena aynu ka talino waayo mustaqbalkeena haddaanu ka talin weyno inama gaaraysa maxay ahaytoy reer hebel maanta nagama saarayso 30 sano aynu ku jirnaa reer hebel waayo wax laga dhaxla anama garanayo waxbarasho la'aan bayna dhigtay jaamacad la'aan bayna dhigtay iskuul la'aan bayna dhigtay maxay ahaytoy wallahi marmarka qaar markii laga sheekayo hooyada iga sheekayso xilligii dowladdii siday ahaan jireen wallahi billahi indhahayga ilma kasoo dhacda labadeeda indhood ilma ayaa kasoo dhacda walaalahayga qaaligayo marka haddeenaan anagu iskaro qaban maxay ahaytoy iska xanqaban keena baahan keena maskiinka keena fuqarada ah intaba haddeenaan iskarab qabanin waxa weeye cidina wax noo qaban mayso dowladda la sheegayo waxay ku timaadaa isku kaashi isku maxay ahaytoy dabacsanaan isku diirnaxid laakiin ilaa maanta qarax dim maxay ahaytoy shabaab dim waxa weeye ma ya arkay lama arag yaa sameeyay lama maqal waxa weeye taas oo kaleeto inuu ilaahay naga qabto annagana ilaahay u barino inteena qurbaha joogto rabbigan u barino maaha maalin kasta inaan lacag diro aynu ku dirno dadka masaakiinta ee wax qarxinaya dadka masaakiinta la qarxinaya inaynu lacag kharash ku bixino maahan waxa waaye inaynu garab istaagno ummadeena baahan inteena masaakiinta ah kan qaraxa maxay ridaya hadaan lacag u diro oo ku taageerno reer hebel ku taageerno Soomaaliya waxa weeye wax beer gaari mayno nolol gaari mayno caafimaad gaari mayno waxa weeyaan inteen weligeed waxaan ahaanayna 30 sano hadda la soo dhaafay 30 sano soo socda waxaan ahaanayna burbur waxa weeyaan dhammaanteen ilaahay qulubteena burcad ha isku mariyay jiraan burcad isfaasna soo xiyay burcad wax u malay subaga weeyaan hadaan soo xasuustay subaga maartay markii Soomaalida maxay ahaytoy af Soomaaliga saxda ah subaga weeyaan burcadka waxa la subaga caanaha markii la lulo
maxay ahayd waxyaabada laga dajiyo kan cad burcadka la dhaho camal asha nadiif oo qurux badan waaye moogtahay marka ilaahay qulubteena burcada isku mariyo ilaahay qalbiyadeena ha isku soo jeediyo ilaahay dhammaanteen waxa weeyaan wanaagga hayna tuso xiqdiga iyo xaasidnimada allaha naga saaro ducada in la badiyo weeyaan ducada in la badiyo weeyaan dhalinyaro insha allah ducada in la badiyo weeyaaniin meelo badan baa saa u daldaloola sidaa u daldaloola waxa weeyaan haddaan ducada lagu xijaabin wax kasta imaan doona marka insha allah aad iyo aad mahadsan tihiin walaalaha iyo qaaliga channelka sida quruxda badan aa ugu xiran tihiin subscribe-ka leeka commentiga insha allah intaba kasoo dhawaajiya waxa weeyaan maxay ahayd tooyeen sida ugu dhaqsiyaha badan maxay ahayd tooyeen waa inaan u gaaraa maxay ahayd tooy suga tishma soo qabsanaya sida ugu dhaqsiyaha badan waa inaan u gaaraa kun subscribe alxamdulillahi rabbil caalamiin idinkana waa idinka mahadcelinayaa insha allah xaaladda waa inay kala kacdaa soomaalinimo talnimo ilmo adeernimo ayaa meesha ka kiciya channelkan waa cusub yahay hadda 200 wax ka yar baa meelaha ii saaray subscribe-ka marka insha allah idinkana waa idinka rajeynayaa qof alaala qofkii fariintiida soo gaadho oo Soomaaliya waxaan ka rajeynayaa inuu subscribe ii saaro insha allah mowduucyo badan baa soo wada waa buuxa fari kama qodna faanoole fari kama qodna marka insha allah ilaahay waxaan ka baryaynaa naftayda iyo nafteena u dardaarmaya xabsida ilaahay inuusan igu fidnayn maxay ahayd hooyeen oo maxay ahayd cabsidiisa markasta taqwadiisa qulubta noo gasho idinkana meel kasta dunida daafeeda ka joogtaanin saasaan idin dardaarmaya alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaaha mahad iska leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalahayga qaaliga aad iyo aad u mahadsan tihiin isku soo noqo dambe xiisa leh waa walaashiin Saara Queen